ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay kulan saacado badan qaatay ay la yeesheen mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda oo uu horkacayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Khalid Qodax waxaana kulankani markii uu soo dhamaaday warbaahinta uu faahfaahiyay ujeedka kulankan gudoomiyaha gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Mustafa Khayreeye maanta waxa nala joogay gudoomiyihii hay'adda shaqaalaha dawladda iyo saraakiil la socoto agaasimaha guud ugu horeeyo wuxuu ahaa kulan caadi oo kulamadii caadi ahaa hay'ad iyo gudigu yeelan jirtay kamid ah hay'adaha dawladda iyo gudigu yeelan jirtay waxaan ka wareysanay xogta wasaaradda iyo shaqadeedii iyo qaabkay wax ugu socdaan at the same time waxaan wax ka weydiinay wixii xog aanu haynay ayaan la wadaagnay oo waxa weeye haday shaqaale tahay haday mas'uuliyadda ay hayaan waxaanu ka weydiin karaynay waxaanu macluumaad ka haynay shaqaale haddii la ka dhigo wixii cabashooyin shaqaale ee jiray insha Allah aad baan ugu mahadnaqaynaa kulankana gudoomiyuhu waa nagala soo qayb galay madaxdiisu wixii aan weydiinayna waxa weeye jawaabaanu kala helnay insha Allah kulamaduna noqon maayaan kanoo kaliya kulamada dambaanu insha Allah yeelan doonaa aad iyo aadna waa ugu mahadnaqaynaa mas'uulka iyo hay'adiisaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay kulankan ay maanta la yeesheen gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland aad baan runtii ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gudiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka iyo xildhibaanada kale runtii kulanka nala wadaagayay waxaana kamid ahayd runtii hawlshii shaqo aanu qaranka u haynay haddaan nahay xukuumadda iyo hadday tahay wakiiladaba isla xisaabtanka iyo isdabagalka iyo isxog waraysiga aniga oo ka wakiilo hay'ad shaqaalaha dawladda iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyadu waxaan la wadaagnay runtii waxyaabihii noo qabsoomay waxyaabaha qorshaysan caqabadaha hor yaala runtii iyo waxyaabaha aan danaynayna inaan ka wada shaqeyno mustaqbalka golaha wakiilada oo uu kamid yihiin runtii xeerar fara badan oo kuwa soo socday iyo kuwa runtii la hirgeliyayba gudoomiyaha iyo tiimkiisa wakiiladaba runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wixii ay su'aal qabeen wayna weydiiyeen annaguna wixii aan jawaab haynay waa siinay waxaana kamid tahay runtii sunnaha dawliga ah in markasta la isla xisaabtamo wax la isweydiiyo la iska warhayo si dheelitirka iyo hanaanka higsiga fogeyn higsanayna runtii uu midho dhalo xildhibaano runtii bisilo ka warqaba shaqada aanu hayno xog fara badan oo detailana hayaba ayaa la kulannay annaguna su'aalihii ayna weydiiyeen wixii aanu markaa macluumaad ka haynay iyo jawaabahoogii oo waafiyana waa siinay runtii kulan wuxuu ahaa aniga xiise iyo runtii xalxantayn gaar ay ahaa oo u badnaa isxog waraysi ku dhisan aqoon iyo waa aragnimo aan wadaagaynay markaa dhammaan xildhibaanada oo gudoomiyuha gudida ugu horeeyo waanan uga mahadnaqaynaa runtii sida quruxda badan ee ay noogu soo dhaweeyeen su'aalaha noo weydiiyeen idinkana saxaafad ahaan aad baan idinku mahadnaqaynaa inaad waqtiga dambe runtii aad joogtaan oo aad si aad macluumaadka iyo xogta aad u heshaan aad runtii u baahisaan oo u gaarsiisaan yacni dadweynaha sharaf bay noo tahay saxaafaduna runtii sida xildhibaanku sheegay waa ku raacsanahay waa lafdhabar aad iyo aad baan idinkana idinka mahadnaqaynaa Axmed Daahir Nuux Nasab ka Saan TV Hargeysa